muddooyinkii dambeeto ee aynu soo dhaafnay ha u badnaadeen bilihii iyo maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday kulamo gogoos ah iyo shirar ku qabsoomayay aaladaha fogaan aragga iyo telefoonada ay yeelanayeen aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaamadaas Maakhir State of Somalia kaas oo lagu dhisay guddi farsamo oo ka soo shaqeeya abaabulka iyo taabagelinta shirarka soo socda haddaba guddigii farsamadu markii ay garwaaqsadeen kala daadsanaanta baahsanaanta iyo dib u dhaca dhan kasta oo horumarineed kadib markii ay arkeen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo tangeeska Afrikaba markay u kuurgaleen xaaladaha amni ee ku geedaaman dhammaan dhulka reer Maakhir ama deegaamada reer Maakhir markii la xaqiijiyay duruufaha adag ee Maakhir ku jirto iyo baahiyaha loo qabo in si degdeg ah wax looga qabto baahiyaha kor ku xusan haddaba guddiga farsamo ee la xulay ama loo saaray arrintan in la qabto shirweyne siyaasadeed oo ay ka soo qaybgalayaan dhammaan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka reer Maakhir ee kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba kaasi oo ka dhici doona caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho 30 July ilaa iyo 3 bisha August